qaar ka mid ah beelaha degmada Ceerigaabo ayaa ka hadlay xadhiga Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil oo dhawaan lagu xidhay magaalada Hargeysa. Mas'uuliyiintan ayaa xukuumadda ka codsaday in xorriyadiisa dib loogu soo celiyo Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil oo ka mid ah culimada diinka Somaliland. amar ka yimi mid ka mid ah hay'adaha nabadgelyada oo fadhigeedu yahay Hargeysa kaasoo lagu soo rogay Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil oo ka tirsan deegaanka degmada Ceerigaabo inkastoo fadhigiisu hadda uu yahay magaalada Hargeysa laakiin waa nin deegaanka degmada Ceerigaabo ka tirsan business iyo hantina ku leh amarkaas oo amar culus ahaa oo amar aan bini'aadnimada waafaqsanayn ahaa oo la yidhi magaalada ka bax bisha 6deedii maalin Jimco ah amarkaas la duldhigay oo la yidhi Hargeysa gal amarkaa waanu ka xunnahay waana cambaaraynaynaa haddii uu Hargeysa tagayna wuxuu ku qanco waa la odhan waaye intaanu ka ognahay sheekha sanad walba halkan u yimaada hawlo badan oo khayr ah buu ka fuliyaa socodkiisan u dambeeyay bisha 8aad uu magaalada Ceerigaabo la joogay hawlo kala duwan oo khayr ah ayuu ka wuday waxa ka mid ah nidaaminta iyo hagaajinta iyo nadaafadda xabaalaha magaalada Ceerigaabo oo uu kala shaqeynayay culimada iyo dawladda hoose waxa ka mid ah mideynta madaarista quraaniga ah ee quraanka lagu barto oo uu mudeynayay waxa ka mid ahayd hawshiisa xirfadiisa joogtada ee cilaajka ama shifada oo uu dadka u qabto muddada uu halka soo gaadho sidoo kale intaa waxa u dheerayd hawl suluxa oo uu halka beel ka mid ah beelaha Ceerigaabo oo ragayagan halka ka fadhiya aanu ka midnahay uu sulux khilaaf dhexdiisa awgeed uu sulux ka dhaxwaday ayaa jirtay bisha 4teedii 5teedii labada dhinac ayuu kala dabqaadayay maalintii Jimco ahayd ee bishu 6 ahaydna uu nala balansanaa in kulan wada jira ayuu nagula balansanaa waxaan u aragnaa in hawlahaas dhammaan amarkaasi uu kala tuuray waxaanu isleenahay ninkaas gobolku kama maarmo mana mudna dhaqanka aan wanaagsanayn ee lagula kacay sheekhu ma mudna waa nin daaci ah waa nimaan gobolku ka maarmin intaa war-saxaafadeedkayaga ayaan ku sheegaynaa waxaanu kaloo cidda ay khusayso u sheegaynaa in sheekha xorriyadiisa dhaqdhaqaaqa loo soo celiyo si uu adeega uu u hayo bulshada degmada Ceerigaabo uu u guto Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil oo ka mid ah gobolkan degmada Ceerigaabo hantina ku leh in badanna deganaa dadkiisii iyo wixiisiina degan yihiin inkastoo Hargeysa isaga badan yahay hadda waxaanu sheegaynaa sheekha inuu yahay daaciga Somaliland wax badanna u qabta hadday tahay xagga daaweynta iyo muxuu ahaayay xagga diintaba aad uga taageera tasleex haddeer markii u dambeysay gobolka beelaha ka mid ah annagoo beeshii aanu nahay wuu nala ballansanaa wuxuuna ka dhex waday tasleex buu ka dhex waday waxaanu leenahay hortoon ninkaa yaan lagu metelin waxyaabaha dunida ka socda si badan baa looga warhayaa waa nin dhaqankiisa la hubayaa waa nin culimo ah waa nin alla ka cabsi badan waa nin wanaag mooye wax kale aanu afkiisaba ka soo bixin waxaanu leenahay waanu u baahannahay haddaanu nahay reer Ceerigaabo tasleexii uu noo waday baanu u baahannahay waxaanu ka codsanaynaa hay'adaha nabadgelyada ee ay qusaysaa inay ninkaa xayiraadda ka qaadaan maanta kulankan aanu halkan ku leenahay waxaanu u qabanay waa kulan khayr waxaanu u qabanay Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil oo maalintii Khamiistii ee Jimco ahayd magaalada Ceerigaabo looga yeedhay
oo yeelan hay'adaha nabadgelyada mid ka mid ihi isaga oo halkan ka wada khayraad badan oo ay ka mid tahay beeshayadan ka mid ah oo aanu ka mid nahay isagoo ku dhex jiray oo khilaaf badani dhex yaalo oo isagu ka ahaa oday culimada ku jirtay oo isagu oday ka ahaa waxaanu leenahay markaa oo cambaaraynayna cid alla cidii odayga sheekha xaalad abuurtay ee waxa ku tilmaantay waa dad baanu u aragnaa ka soo horjeeda in reerkani nabdo inuu reerkani nabdo isfahmo heshiiyo cid ka soo horjeeda baa arrinkan gudbisay oo dhigtay baanu u aragnaa marka waxaanu leenahay cid ay khusayso ee hay'adaha nabadgelyada ee Somaliland hay'adda sirdoonka inay sheekha Maxamed Sheekh Ismaaciil u soo celiso dhaqdhaqaaqiisii uu ku lahaa degmadan Ceergaabo isagoo dadkiisa yaalaan isagoo business badan ku leh isagoo ka shaqeeya isagoo ka mid ah dhaqaatiirta dib noogu soo noqota dhaqaatiirta iyadoo dhammi waxay joogaan galbeed kuwii gobolkan u dhashay ama ka mid ka ahaa isagu wuxuu ka mid yahay kuwa dib noogu soo noqda oo inta wiiga ay nala joogaan aan wax badan ka faa'iidno marka waxaanu leenahay oo dawladda dhexe iyo hay'adaha nabadgelyada ka codsanaynaa oo leenahay wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland taliyaha sirdoonka Maxamed Sheekh Ismaaciil hal loo soo celiyo oo laga qaado xayiraadda سميم مهدي عبد الله فتين سومالي TV